madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo dhowr iyo 40 kiiloomitir u jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Deegaanadaasi oo hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. deegaanka Sabiib oo maalmo ka hor ciidanka dawladda gaar ahaan militariga Soomaaliya ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab ayaa dhinaca istiraatiijiyadda dagaalka marka loo eego deegaankaasi waxa uu muhiim u yahay dagaalada oo marka ay kaga soo horjeedaan ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab. madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku labisan dariiska ciidamada militariga ayaa tagay deegaanka Sabiib waxaana kulamo oo la qaatay saraakiisha ciidamada halkaasi ku sugan ee xoogga dalka isagoona ciidamada xoogga dalka ee Al-Shabaab kala wareegay deegaankaasi ku booriyay inay dagaalada sii wadaan isla markaana ay ka difaacaan shacabka deegaankaasi ku sugan. madaxweynaha ayaa bogaadiyay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi Sabiib. hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen markaad meeshaan timaadeen waa carareen soo maaha waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen Sabiib iyo Caanoole aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeen aad ka difaacdaan. marka waxaa la rabaa inaad soo jeedaan inayna seexan inaad meeshay joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin. haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiinna inaad difaacdaan idiin soo bawac dhigi maayaan. waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay carruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan mana idiin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo. magaaladan kama tegayno keliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tegaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taagannahay ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku rahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno. safarka madaxweynaha Soomaaliya oo ku tagay deegaanka Sabiib oo qiyaastii dhowr iyo 40 kiiloomitir u jira magaalada Muqdisho ma ahayn mid hore loo sii shaaciyay. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu halkaasi ku tagay diyaaradda nooca kumaatiga u kacda ee Helicopter loo yaqaan waxaana safarkiisa ku weelinayay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Indha Qarshe. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay, TV Universal, magaalada Muqdisho.